السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين وضع السلامي ومضى الصومالي ميول بأدونك إيكتشوغان وولاشينا ملكي وإذن الله كسور دوادا كعم فران إيو قلبي فران ومركلة يموقال عصب وشانل ملكي دايما يفملكي ده waxaan idinka codsanayaa marka hore in maaragtay video la sii share gareeyo oo la gaarsiiyo walaalaheena kale ee Soomaaliyeed lala wadaago. Saan ognahayba xalay waxa dhacday doorashadii madaxweynaha Soomaaliya waxaana ku guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud oo noqonaya madaxweynaha Soomaaliyeed 4 sano soo socota. waxaana looga guuleystay mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ninka aan taageero masha Allah Allah hadaayo niyadna aan uga duceeyay afnana aan uga duceeyay insha Allah mar walba bashbash iyo barwaaqo ayaan u rajeynaynaa maxamed cabdulaahi farmaajo. taas waa mid oo ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya. waan u mahad celinayaa waxyaalaha badan inkastoo aanan gudaha ugu galin weli aan rabo intaanan gudaha ugu galin arinka aanan ka hadlin labada madaxweyne waxaan ka codsanayaa ummadayda qiimaha iyo qaayaha leh kuwa ila jooga iyo kuwa ii soo galayaba in ma aragtay subscribe-ka la iloobin maxaa la yiraahdaa gambaleelka la furo video la share gareeyo like la saaro dhiirigelintiina wax ku ahay mar walbana waa video kastaan soo dhigo clip kastaan soo dhigo hadalkaas idinkama iloobo. waxa weeye waxaan jeclaan lahaa in la dhiirigeliyo la taageero. taas waa mid. waxaan rabaa inaan ogeysiiyo Soomaali meel walba ay joogaan ma aragtay in Soomaaliya ay leedahay Soomaali. maanta doorashada dhacday waa doorasho guul u ah Soomaali oo dhan. maanta oo kale inay qabiil iyo cawaatifnimo inay qaado ma ahan Soomaaliyeed. waxa taas garan kara waa dadka qurbaha jooga oo dadka wadankoogiiba arag oo ku dhashay wadamada qurbaha oo ku dhalay oo ku weynaaday oo ilaa haddana joogo oo ku dhibaataysan ayaa garan karo qiimaha wadanimada, qiimaha maanta doorashadan dhacday ee leedahay iyo qiimaha madaxweyne kastoo kuu yimaado wadankaaga kuu hogaaminayo inaad taageertid. qofka waxa weeye waa qof wadaniya ayaa garan karo arrinkaas kaliya. qof kasta ma garan karo iyo qofka ilaahay aqal siiyay oo dareemi karo qiimaha wadanka uu leeyahay iyo wadanimada ay leedahay. taas waa mid. marka waxa wanaagsan mar dhaweedan daawanayay iyo xalayba soo u qaatayba madaxweynaheena cusub Xasan Sheekh Maxamuud in doodyo badan iyo ma aragtay dad ka soo horjeeday iyo dad ma aragtay cambaareynaya iska jireen, dad habaartamayo inay jireen. ma wanaagsano madaxweynahaaga maalintaad habaartid dad dalkaaga dhanaad habaartay, maalinta xildhibaanadaada aad habaartay dad dalkaaga dhanaad habaartay. marka waxa weeye inakan dhibkan iyo musiibooyinkan haysto dee waa habaarka ummadda ma aragtay ka dhacayo. marka ma wanaagsano in dadka loo duceeyo ma ahane in la habaaro ma wanaagsano runtii. madaxweynaha ku doonaba ha noqday waa hogaankana waxa weeye dhinaca allu ka yimaada. qof walba kursiga kuma fariisto, dadku way dadaalayaan laakiin ilaahay qofku ugu talagalay uunbaa ma aragta kursiga ku fariisanayo. maantana isagoo hore usoo qabtay xilkan jagadan ayuu maantana kusoo fariistay Xasan Sheekh Maxamuud. waana mid u qorneed maalintu xabiibiye ahaa dhinaca alla looga soo qoray. taasna waa mid in ay ogaadaan Soomaali weyn ay tahay. anigana aad baan ugu taageersanahay, aad baan u soo dhaweynayaa gacmo furan
iyo qalbi furan ayaan ku leeyahay madaxweynuhu ilaahay ha kula garab galo xilkaas waa xil yar ma ahan waa xil aada u ballaaro wadan dhan ummad dhan aada maamulaysid ilaahay ha kula garab galo ayaan ku leenahay talabaadnana maxaa la yidhahdaa maxamed cabdulaahi farmaajon waxaan leeyahay waqtigaagii waa soo qaadatay waana sharaf iyo karaamo ayaad ma aragtay heerka kusoo gaadhay ummadaadiioo ku jecel ayaad ma aragtay xilkii aada wareejisay si sharaf leh oo qiimo iyo qaayo leh ku jirto waxaana rajeynayaa insha allah maalintay cod iyo qof ay noqoto in adiga dadka ugu horeeya aad tahay insha allah hadduu ilaahay kuu qoray waana ma aragtay taas waa mid la hubo waayo ummadii dhanaad ka oysiisay soomaali dhanaa ku jecel waxqabadkaagana insha allah gadaalan ka taataaban oo waa la wada ogyahay markaas kacbadana waa lagaaga soo duceeyay waxaan ujeeda dad badan oo kacbada kaaga soo duceynayo bisha rabadaanna runtii waxa weeye waan kuu duceeyey oo waan jeclaa inaa maanta maaragta kursiga ku fariisatid laakiin qadartii alla may dhacin marka waxaan ku leeyahay guul iyo gobonnimo saad samaysay waxa weeye mareexaan iyo daarood iyo ayaa ma aragtay laga helaa taasna waa iga kaftan maasha allah haddaan ka hadlo madaxweynaheenan cusub inkastoo aanan isku fiicnin siyaasadda aan iska ahay qof iska qurbaawiya laakiin waan jeclaho inta badan waan dhegadhegeeyaa oo waan la socdaa runtii laakiin inta badan ma jecli inaan ka hadlo siyaasadda allahuma salli calaa maxamed haddaan ka hadlo xasan sheekh maxamuud waa nin diblomaasiya runtii waa xasan sheekh maxamuud waa nin diblomaasiya yaa la dhayalsanina isagoo qoslayo ayuu ma aragta wax walba dhameynayaa waana waxa weeye waa nin ku weyn soomaalinimo aada bay ugu weyn tahay waxaan xasuustaa waa ninkii badda markii kenya ma aragtay codsi sameeyey berigii ay arjiga qoranayeen waa la socday ninkii codsigoo ku caliyey oo ma aragtay badda kasoo badbaadiyey ayuu ahaa inkastoo hadda la leeyahay aan maqlayay lalahaa ma aragtay waxaa ka dambeeya oo riixayo waxa weeye kenya iyo imaaraadka laakiin waxaas wax ka jiro ma ahan ninkan wuxuu kusoo koray ma aragtay xilka waa wax alla u qoray taas in la ogaado weeyaan kursigan inuu qabto xasan sheekh maxamuud way qorneed dhinacale ka qorneyd soomaaliya talabaadnana kartidiisa ninkan maalintuu qabtay wadan xilka uu kala wareegay sheekh shariif wadankusuu ahaa waa la ogaa heer fiican uu soo gaarsiiyey isagoo leh qab yaa wax iga ah ayuu xilka dhiibay marka wixii qabyada ka ahaa hadduu jaaniski helay mar labaad gacanta uu ma aragtay usoo galay waan arkaynaa kolley wuxuu qabto waana rajeynayaa insha allah inuu wax qaban karo xasan sheekh maxamuud madaxweyne kastana waxa wanaagsan hogaamiye kasta nin kastoo madaxa xilkiisa in ma aragtay lagu taageero nun ma ahan in ma aragtay looga soo horjeesto haddaynu Soomaali nahay dad waxaan nahay iska dhib badan dad waxaan nahay qalaaska iyo ma aragtay dooda iyo buuqa jecel ha loo dhaafo ha la eego waqtigiisa ha la siiyo xasan sheekh maxamed aadaan uu kugu hambalyeynaya aadaan kugu soo dhaweynaya welcome madaxweynaheena cusub maxaa la yiraahdaa xasan sheekh maxamuud waxaan ogahay waa nin karti leh waana nin wadankiisa wax ka qaban karo maxamed cabdulaahi farmaajo wax la taaban karo ayuu sameeyay runtii dowladda dadkiisa ummadiisa shicibkiisa uu hormariyay marka waxaan rajeynayaa xasan sheekh maxamuud inuu tusaale uu noqdo cabdulaahi maxaa la yiraahdaa maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka sii wado meesha wixii wanaagsanaa uu sameeyay
mudanaheenii madaxweynaheenii hore maxamed cabdulaahi farmaajo. taas waa mid. waxyaalo badan oo la taaban karo uu sameeyey way jirtaa. maxamed haddaan ka yara taabto maxamed cabdulaahi farmaajo siduu inuu ciidamadii ma aragtay uu hormariyay, in ma aragtay waxyaalo badan oo wanaagsan uu sameeyey, in mujtamacii Soomaaliyeed dad badan uu caawiyay, in ma aragtay xabsiyadii caruurta iyo dadka ku jira Soomaaliya Liibiya uu ma aragtay soo daayay, iyo waxyaalo badan oo meesha aan ka kala iloosanahay oo la taaban karo ayuu sameeyey oo lagu xasuusto. dhinaca ha noqoto diiniina wadaadadii wax u qabtay, dhinaca ma aragtay oo dadkii masaakiinta wax u qabtay, dhan oo maxaa la yiraahdaa ciidamadii wax u qabtay hormariyay, dhinac walbaba dowladda ma aragtay. inkastoo farifooli ma dhaqdo Soomaalida ay tiraahdo hal qof waxba oo wadani ah wax ma tari karo, haddii isagoo oo kale oo 10 la helo mise 20 oo ma aragtay maxamed cabdulaahi farmaajo oo kale ah oo wadanka waxa way isbedel weyn ayaa imaanayo. waxaana u rajeynayaa insha Allah maxamed cabdulaahi farmaajo mudanaheena madaxweynaheennii hore in maalintay noqoto cod iyo man and vote me cod iyo qof maalinta inuu noo soo noqdo hadduu alla raali ka noqdo insha Allah. waana rajeynaynaa one day inay noqoto qof walba codkiisa uu ku dhiiban karo qofku isaga jecel yahay, oo sheekadan ma aragtay hadda baarlamaanka lagu codeynayo iyo qabiilkan laga tagi doono hadduu alla raali ka noqdo one day. taas waa mid. hadalkayaan inagu badin, maanta intaas ayaan jeclaystay inaan u mahad celiyo, aan u hambaliyeeyo madaxweynaheenan cusub, aanan u mahad celiyo madaxweynaheenii hore mudane maxamed cabdulaahi farmaajo. waanu ku jecelnahay, madaxweynaheena ayaa tahay. insha Allah you gonna back one day hadduu alla yiraahdo. madaxweynaheena cusub xasan sheekh maxamuudna waxaan leeyahay ilaahay xilka ha kugu asturo, ilaahay ma aragtay ha kula garab galo, ummadaadana ma aragtay dad oo ma aragtay ku fahma Allah ha ka dhigo. waxaan oran lahaa social mediaha dhibkan iyo ma aragtay iyo qabiilkan lagu dhexwado Soomaaliya noo dan ma ahan, hal iska joojiyo, hana ma aragtay ilaahay ha laga baqo. qurbo waa lagu dhibaateysan yahay, wadanimada iyo wadankaaga wax ka wanaagsan ma lahan, wallahi wax ka wanaagsan ma lahan. qof walba wadankiisu sharaf ku leeyahay iyo dadkiisa iyo ma aragtay madaxweynihiisa ayaa lagu sharfayaa. marka waxa weeye dhibka hala joojiyo. hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad ayaa idin leeyahay. sidaa iyo nabadgelyo iyo kulatin dambe oo xiiso leh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. madaxweynaheena soo dhawow, madaxweynaheena soo dhawow, madaxweynaheena soo dhawow.